bisha barakaysan inako oo caafimaad hayna oo nabadiina hayna ilaahana soo gaarsiiyay baan ku mahadinaynaa waana nicmadaas qalbigeena ku weynaato adoo balad aamina joogo wadankaaga aamin uu yahay jirkaagiina uu caafimaad qabo ilaaha jalla wa ala bisha rabadaan ku soo gaarsiiyay waa inaad ugu mahadnaqdaa dad badan baa kala horeyna la soomay laakiin maanta adduunyada ma joogaan way ka intiqaaleen dad badan baa kala hore iyagoo caafimaad qabo rabadaanku u soo galay way soomeen laakiin qaarkood maanta waxa laga yaabaa inay bukaan yihiin ay jiifaan marka waa in nicmadaasi ay qalbigeena ku weynaato ilaahay baa leeyahay in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar ba ilaahay yiri damacdan nicamta ilaahayna tira ku soo koobtaan ma soo koobi kartaan ba ilaahay yiri runtiina waa bil aad u khayr badan weeyaan maantana waa maalin jumcadu iyadoo maalmaha kaleba ka fadli badan haddana markay aad ku soo dhacdo maaragtaana bil rabadaan ajarkii iyo khayrkii uu sii ziyaadaya oo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam xadiis wakiilaha maalmihiina ay nagu soo noqnoqonaya maalinta ugu fadli badan buu nabigu yiri waa maalinta jumcada shan khasladood bay jumcadu maalmaha kale ay kaga fadli badan tahay khaslada koobaad buu nabigu yiri abuna aadam calayhi salaam maalin jumca ayaa nabi aadan la abuuray maalin jumca ayaa jannadana la geliyay maalin jumca ayaa jannada laga soo saaray maalinta jumcadii waxa ku jirta buu nabigu yiri saacatul ijaaba saacad ilaahay uu ducada qofka ducaysta uu aqbalo maalinta jumcadana waxa uu nabigu yiri saacada qiyaamada ayaa dhici doonta marka bishii rabadaan iyo jamca waa nicam weyn weeyaan ilaahayna nagu mahadino weeyaan habeenkii ugu horeysay bishani ay bilanaysay waxa uu nabigeenu yiri calayhi salaatu wasalaam iclaan ayaa xagga ilaahay ka imanaya malag baa dhawaaqayo odhanaya yaa baaqi alkhayr aqbil warkii khayrka doonayo bishani waa bishii khayrka soo qaabil waa bishii khayrka weeyaan waa bishii naxariista weeyaan waa bishii dambi dhaafka weeyaan waa bishii naarka xoreynta weeyaan malag baa odhanaya yaa baaqi alkhayr aqbil kii khayrka doonayo bishani waa bishii khayrka soo qaabil oo soo jeeso oo cibaadada ilaahay soo qaabil oo salaada taraawiixda soo qaabil oo quraanka akhriskiisa soo qaabil oo kathratul khayr bishani waa bishii khayrka ajarka badan laga helayo soo jeeso buu leeyahay malagaasi soo qaabil wa yaa baaqi sharri aqsir kii dambiga iyo fujuurka iyo macsiyada iyo xumaanta ku dhiiranaya mar walba xagga sharka u degdegayo bishani bishii ilaahay la caasinaya dambiga la laaqanaya ma ahina ka joogso buu leeyahay ka gaabso waa bishii nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu yiri hadii rabadaan uu yimaado albaabada jannada ayaa la furaa wa fi riwaayatin albaabada raxmada ayaa la furaa malaa'ik albaabada naarahana waa la xidhaa buu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam maradatu shayaatiina waa laga xidhaa bini aadanka waa bisha kaliya ilaahay jalla wa ala quraanka uu ku sheegay magaceega shahru ramadaan waa bisha maaragtaane la yiri waa bisha quraankuna uu soo degay waa bisha kaliya ee nabigeenu uu yiri habeen kasta oo bisha rabadaan kamida buu nabigu yiri waxa uu ilaahay leeyahay adoomo uu naarta ka xoreeyo waa bisha kaliya ee la sheegay in albaabada jannada la furo waa bisha kaliya ee la sheegay in albaabada naarahana la xidho bal tiriya fadaa'ilkeega bisha rabadaan fadliga leedahay waa bisha kaliya ee nabigu uu yiri maradatu shayaatiina waa laga xidhaa bini aadanka waa bisha ay ku jirta habeenkii weynaa ee quraanka ilaahay uu sida gaarka ugu ammaanay ee uu yiri inna anzalnahu fi laylatil qadr tobanka damana allah ina gaarsiiyay waa bil aad u barakaysan oo xurmadeeda in la siiyo ayay mudan tahay bishani
الصوم جنة صومك وحو نبيك كشيء فضائل كيس كذلك إنه يهي قاشان الصوم لي وأنا أجزي به إلى حين واكلها حديث القدسي صومك أنيقا أيا إسكالي أنيقا أنا أدونك كعب المرين دونا وبشأ النبي محمد عليه الصلاة والسلام يري صائمكو انتو نن أفرين وحا أوليه دعاء أقبله ومرك عداد أيسير عيسو هذا فرك أودي أرجروبي سحلق دعاء والله أقبلاي باهد هذا إلهي وشيقو صومكو وقاشان الصوم جنة نارتو قاشان كاغا نقونيا شهوات النفط أيو قاشان كاغا نقونيا معاصد أيو قاشان كاغا نقونيا xanuunada dhakhtaradu ay daweyn kari waayaan ay bashar rabadaan ay daweysaa bal dhakhtarada ay waraysta oo dhahada bishee baad ugu shaqo yartihiin waxay ku oranayaan bisha rabadaan baan ugu shaqo yarnahay nin doctor oo maalin ka hadlaya ayaa yiri bishii caafimaadka timiday bishii dadku ay bogsanayeen baa timiday waayo baa lagu yiri wuxuu yiri bisha cid noo timaado uma ba aragnay buu dadka bukaanku way yaraadaan بشي عافماتك وبشي إلهي تبارك وتعالى لو دواناي وبشي دم بدافك من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بشا نينكا صوم ابو نبي غليهي مالين كاستو او بشا كميدا نينكا صوم ابو نبي غليهي دنبيغيسي هورنا waa loo dhaafaya man saama ramadaan bisha ramadaan ninka sooma iimaanan isaga oo iimaan leh oo yaqiin leh oo garanaya amarkan inuu yahay amar Allah xaqiisa ka yimiday ihtisaabna waa maxay ajarka iyo thawaabkana ilaahay tabaaraka wa taala ka dalbayo ilaahay ka rajaynaya inuu ilaahay ka abaal mariyo dambigiisii hore oo dhan waa laga dhaafaa buu nabigu alayhi salaatu wassalaam من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نك بشهر رمضان صلاة التراويح ذا أكعب نبي قليه عليه الصلاة والسلام سقوا إلهي كوكل صونو إيمان قبه واحتسابا أجر يا ثوابنا إلهي كدل بايو إلهي كرجين يا أجر وكسي عبادة سقنا ذنبه هري وقد عيو دم بالقد عفاب نبي قل عليه الصلاة والسلام وابشا ونبينا يري عليه الصلاة والسلام هدي متكين وأفرايو تمرها كو أفرب ونبي يقول تمر هدي وتمر ويانا بيها عادها كو أفرب ورسولك يري فالشريعة الإسلام هو عجيب لبدانا الدواء كجرته وجو تمرتا محو نبي يقول تمرتا وهو الرئيسي وحال عنتدى إلى هاي دولك وكسو صار أو دن مذول بفي تميجا كجرتا أيا تمرتا ودن إلى هاي كو أبو ريبا اللي hilibka fitamiga ku jira timirta waa laga helayaa caanaha fitamiga ku jira timirta waa laga helayaa bariiska fitamiga ku jira timirta waa laga helayaa waxa liya waxa nabaataat iyo khudrawaat iyo maaragtaan nicam ilaahay bin aadanka uu siiyay cunayaan mid walba gaar ahaan fitamiga si gaar ah iyada loogu abuuray ayaa ilaahay intuu soo jamciyay baa ilaahay timirta inoo soo dhaxgeliyay timirtu waa nicmada muslimiinta ilaahay khaaska uga dhigay waana zaadkii muslimiintu ay diinta caalamka dhan ku gaarsiiyeen asxaabu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam radiyallahu anhum ajma'in markay risaalada muhammadiyada ay xambaarayeen adduunyada gaarsiinayeen zaadkay isticmaalayaan wuxuu ahaa timir buu ahaa timir mana xumaat taariikhdeeduna ma dhacdo saalixiintu waxay oran jireen aqalka timir aynan oo lina faqriba aqalka yaala marka abu nabigu leeyahay alayhi salaatu wasalaam ninkii soomayow hadaad soontid buu nabigu leeyahay kiina afuraya timir ha ku afuro haduu timir waayana biyaha cad ha ku afuro biyaha cadna waa taahir buu nabigu oo macdada jirkaaga jeermiskii ku hadhay oo dhan bay banaanka u soo saarayaan bishani waa ilaahay ayaad ugu dhawaanaysaa qofka muuminku ilaahay buu ugu dhawaanayaa dambi dhaaf buu ka helayaa naarta ilaahay kaaga xoreynaya darajaadkaaga kor loogu qaadaya caafimaadka ayaa ku ziyaadaya
وبشي القرآن كو صدقي ويان نبينا محمد عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام انتو أي مادو أي سجي جبريل بشهر رمضان قرآن كاي درس جرين قرآن كاي آخرين جرين قرآن كا بركا إنكم وحلا نقدونا يا إن بشا مالين تيدنا عن وقتنا أن بوحنو وان عبادة يا صلاة يا قرآن يا ذكر يا طاعة إله يا مدارسة العلم أن كبوحنا لين نقربا هبين كنا صلاة الليل يا مناجاة يا صلاة التراويح أن وقتنا كبوحنا لين نقدونا يا لما ملود بشيطان كقلب علماء دويرادين وقت كمرنا الشيطان كأيات دقة أقل كمرنا الشيطان كأيات دقة مركا قفك مسلم كالله دوني ما وقت جيس إنه كدقة فراق بل فراق وقت كإلالي وبوحي ومحن كبوحنا وحن كبوحنا بشني ما دامت بش القرآن كوسودجي قرآن كآخر سكيس أيام بدنينا ما دام النبيين عليه الصلاة والسلام بشا ملك الجبريل انتو أي ماذا قرآن كأي ود الدرس أي جرين إنكنا بشا رمضان وحال الدنيا قرآن كينا ندرسنه وضو يران بل مالنتي هل جزء قرآن هذا خردا سبشا رمضان قرآن كمر هذا ختمتها هذا صدح جزء مالنتي هذا خردنا واحد ختميسا صدح جرب القرآن كختميسا هذا شن جزء هذا خردا قرآن كمارك تاني مالين كستنا صدح ذي لحدي مال موضع قرآن ككو ختميسا والله جاي بشا رمضان إنها ختمت مارك تاني لحجر تضبجر أسماء بن عفان رضي الله عنه يا أورنجري هذه قلوبتين طاهرة أي نقول لهينا قرآن كآخر سكيسة كماد داشين بأورنجري قرآن كآخر سكيسة كماد داشين لذلك وحا سلف الصالح علماء أي شيء عن صحابة ما هنا دتك كدم بي حتى تابعين تتابع التابعين إلى يومنا هذا ضدوح لهلا يا قرآن كمالنتي مر ختمها يا قارقون الله بجر بمالنتي قرآن كختمان والله هلا إمام الشافعي رحمه الله هيا لقى شيء إنه بشهر رمضان لحدا جر قرآنك وختمه لحدا جر إن كنا ما أنت معاك شيء إننا مسلمين تمان تولي بشن رمضان يمال معهم شيء كذا إنه قبضا وحويان حنون كاير أدون كلقو شيء ما أنت دتك ودن كعبات سيء كقيل سيء لابد يسكت ما دبا حنون كابي كشيء إنسان ما أنت يا ليت سيدا حنون كأنو هذا الحين هدان إلهي وهذا الحين لحين وقرآن كهو أخرسن لحين ونستغفارت أبدين لحين وإلهي ذكر جيس أبدين لحين لكان خيرا خير بنكو سجنان لحين من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي با إلهي الحديث القدسي أدونك أنيك كلجي حصوص تبا إلهي لي كلجي بن حصوصا أدونك جمع يقول حصوصنا جمع ويقول حصوصي جمع كخير بدل ما كل حصوصا با إلهي الحديث القدسي نتذاكر انت وحكى هذا الهيسد مخلوق انت هذا الهيسد ان هذا الهيس كلكم من اوكوفي عن ان الهي الا مناجوتي صالحين تا waxay ahaayeen markay dadka la hadlayaan way dibsanayeen markay kaligood meel ay fadhiistaana waxay dareemayeen inay wehel ay haystaan waayo kaligood markay fadhiyaan waxay la munaajoonayaan waa ilaahay quraankiisa akhrisanayaan quraanku waa kalaamka ilaahay وموعدة إلهي وعالم كوجدي هذا دون تأذيق إن إلهي الله هذا شيء نبال ليري صلاة تكوب وقفك تكون إلهي ولا مناجون يا هذا دون إلهي وإنه أذيق كلها لنا قرآن كيسك الله فرق قرآن كإلهي أخرسه صحابة رضي الله عنهم مسكدا مساجد كدحدي ذي ما لها مجالس أيليه مركي فرديان وحي مارك تاني أي دقي سنة مر والبا إن إلهي حسوسيان وآخرة حسوسيان وساعة قيامة حسوسيان في السنن وحو نبينا وحو شيخ إمام مسلم رحمه الله رسول كنا عليه الصلاة والسلام أيا صحابتي سقار كمدو ميل فرديا أيو نبيغو يمدي مركابو نبيغو كوير محاد هذا الهيسان بلي شيخ مركا سيد هذا ساعة قيامة أيان هذا الهينا وزمن كي وكوني أفر بقول أو سنة كهر intay saxaabadu meel ay fadhiistaan bay ka sheekeynayeen saacada qiyaamada soo socota goor may dhici doontaa annaka uga xaq leh inaan maanta hadal hayna saacada qiyaamada marka abu nabigu ku yiri innaha lan taquma saa'atu hatta taraw qablaha 10 ayat saacada qiyaamadu ma dhacaysa buu nabigu imani mayso
ilaa ka hor aad aragtaan 10 calaamadood buu nabigu yiri calayhi salaatu wassalaam 10 ka calaamadood waa calaamatul kubra ayaa la yiraahdaa laakiin waxa jira ashraad as-saa'a wax la yiraahdo calaamaatu sughra iyo kuwa la arkay maanta hadii la tiriyana maanta magaalo walba waa laga helayaa calaamaatu sughra laakiin nabigu saxaabada xadiiska wuxuu ugu sheegay saacada qiyaamadu inaynan dhici doonin ilaa aad aragtaan ama adduunyada dusheeda lagu arko 10 calaamadood buu nabigu inuu yiri calayhi salaatu wassalaam فذكر الدخان والدجال ودابة ونزول عيسى بن مريم وطلوع الشمس من مغربها وخروج يأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب وآخر ذلك النار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى محشرهم بنبي يري عليه الصلاة والسلام وحو رسول كأنه يري ساعة قيامة ما دعي دونتو إلى الله أركض 10 علامات markaa buu nabigu sheegay qiiq samada ka imanaya buu nabigu sheegay kama fi nass alquran fartaqib yawma ta'ti as-samaa'u bidukhanin mubin yakhsha an-nas hadha 'adabun alim waxa nabigu sheegay qiiq samada ka imanaya buu nabigu sheegay waxa kaloo nabigu sheegay dajjal buu nabigu sheegay calayhi salaatu wassalaam oo adduunyada buqcad kuma taalo illa dajjal uu maraya dadkana wuxuu ka dhaadhicinayaa inuu yahay rabbigii isagu dadka abuuray inuu yahay buu ka dhaadhicinayaa wa sharru ghaibin yuntadar ayu nabigu yiri fadajjal fa sharru ghaibin yuntadar aw as-sa'a wa sa'atu adha wa amr dajjal buu nabigu sheegay inuu imanaya aakhir zamaanka maanta zamankan maanta ka warrama صحابة رسولك رضوان الله عليهم أجمعين أحاديث الدجال كصابسن مرقو نبيكو وقور رمايو وحايدادين وحان موذي جرني سيدا وهذا النبيكو قلوب تادا أساميني درتنا قدام بيسينو الدجال كجرانو ملينين أصحابتو دادين وأكوني أفر بغلو سنة كهر ويان وحاس ونبيكو كور رمايو إنك أنا ما أنت زمن كأنا كور رما كورونا فيروس ما أنت عالم كنا وريريو لهذا الحياة حنون أمر إلهي كالصعدة وجند من جنود الله وقفك إلهي وقلت لك لما أنا قفك الآن كل عين أي عالم كودن لابد يسكت ما دمان تكشى كيسان إسا صحابتنا كوني أفر بغلو سنة كهر وحي كشى كيسان دجال إنه صوت صعدو مركو النبي قد دجال وغشى كينا ينبيد هذين وحنون ملينيني يقين تخبر كالنبي قاي أقبان درتنا قدام بيس الدجال إنه كجرانو ملينين أصحابته إلادين دجال بنبي وشاقين وأدون كردن مرايو جنة النار وحويك بوتا وعو نبي قوليه عليه الصلاة والسلام قفل يقفك السقر الرمية الراعنا وحا جنة وتا أيو كتوريا ضد علي دادك السقر إنكري هذا الرب متهيدي كافر دجال آيات هينا نارتو كتوريا مرقاب نبي قوليه عليه الصلاة والسلام طبعاً كآيات سورة الكهف نكا آخر استمالنتي إلى هاي في الندى الدجال وكبت بعد أبو رسول كويدي وفي رواية توكد ضمن النبي قوى شيء وحكلوا النبي قال الشيخ عليه الصلاة والسلام دجال إنه أدون كودن وصامين وقليا مكية مدينة مقليا أبو رسول كويدي وفي رواية حديث وعيشيك سأفر ملوج دجال مقلايو جبل الطور بورتي نبي موسى عليه السلام لوقو وحيودي إلهي نبي موسى وكل مناجود مقلا يد الدجال مكة مقلايو مدينة مقلايو قدسنا مقلايو أبو رسولك المسجد الأقصى الدجال مقلايو لكن شريرين دتك الشركة بدل منافقين تا مكية مدينة دحديدة كله من يكون أيك الدجال بنانك وقبح يا أبو رسولك يدي على مدى صدحات بنبي يقول ودابت دولك كصوبة حيسا بورت الصفا إلى إن الصفا والمروة صخر ذا كصوبة حيسا يدنا الدوية ودن بين مريسا قف كستو الدوية كويا الله ينبي يقول وإشابدين وحقف والبؤي هين وكوكر من دون تابو رسولك يدي مؤمن كمؤمن بيكو شابدين كافر كنا كافر بيكو شابدين وعاكلوا نبي يقول شيء إنه إيمان يا نبي عيسى عليه السلام ينزل عليكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية نبي عيسى عليه السلام
ayaa dushiina ku soo degi doona buu rasuulku yidhi xakaman isagoo xaakima shariicada islaamku adduunyada ku xukumi doona oo cadaalad fali doona dulmiga maanta aqal walba iyo mujtamac walba saameeyay oo ka rafici doona saliibka gaaladu ay yiraahdaan nabi ciise lagu xidho lagu daldalayna uu jabin doona cadaalada islaamku adduunyada ku xukumi doona buu rasuulku yidhi waxa kale uu nabigu sheegay yaajuuj wa maajuuj iyakana la furi doona buu rasuulku yidhi waa laba ummadood oo ku abtirsada yaafith banu nuux bay ku abtirsanayaan ummadiiba waa 400,000 mid iyaka kamida ma dhintaba la yiri ilaa uu arko kun wiilo isagu uu dhalay oo qaan gaaro dagaalka galay mooyaane ummadana adduunyada waa lagu soo furi doonaa hatta idha futihat yaajuuj wa maajuuj wa hum min kulli hadabin yansilun waa ka quraanka ilaahay noogu sheegay waxa kale nabigu sheegay الشمس بو نبي علامه اللحاد waxa kamida cadceeda oo ka soo noqota meesha ka dhacdo laba marxalo qofku intaynan soo gaarin haduu toobadkeena buu nabigu toobada ilaahay jalla wa ala waa ka aqbala laba marxaladood naftu markay ka soo baxdo jirka oo dhan ee halka hunguriga dhuunta iskugu timaado haduu yiraahdo qofku markaasan ilaahay u soo noqonaya toobada laga aqbali maayo naam haday cadceedu galbeed ka soo noqotana albaabka toobada waa xidhmay buu rasuulku yiri صدح meelood adduunyada ku taalana buu nabigu dhulka ayaa go'i doona khasfun fil mashriq dhulka ciidadu ay ka soo baxdo wadana dhan iyo ummada dhan baa la waayi doona calaamada toddobaad waa taas calaamada sideedaad buu nabigu khasfun fil maghrib galbeedka adduunyadana wadana dhan iyo ummada dhan baa dhulku la go'i doona calaamada sagaalaad buu nabigu khasfun fi jaziratul arab dhexdeedana dhul iyo ummada dhan baa la waayi doona calaamada tobnaad buu nabigu yiri walaalayaal waa naar ka soo baxaysa cadan magaalada cadan gunteeday ka soo bixi doonta banka qiyaamada ku soo ururin doonta buu rasuulku yiri tobanka calaamadood baa ka soo horeeyay buu nabigu yiri saacada qiyaamada tobanka calaamadood maanta wax ka sheekeynaya waa yar yihiin xanuun bay ka sheekeynayaan xanuun gaajay ka sheekeynayaan abaar bay ka sheekeynayaan waxa maanta adduunyada dadka la weyn maanta bishani marka waa bil barakaysan yaanan hadalka adduunyada isku badin man lam yadac qawla az-zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yadac ta'amahu wa sharabahu ma waxa laga soomaya baadiye biyo kaliye waxa la doonayaa in arabkaagu laqwiga ka soomo dhagtaadu laqwiga inay ka soonto ficilka xun inaad ka soontid calooshaadu xaraanta inay ka soonto waqtigaaguna meelaha xun ku baxayo inuu ka soomaa loo baahan yahay makhluuqa sheekadiisa hadal qaadkiisa ka soon hadaad sheekayn quraanka akhriso hadaad dad u sheekayn saacada qiyaamada ka waran hadaad dad u sheekayn dadka ilaahay uga sheekay hadaad dad u sheekayn dadka aakhirada u soo jeedi hadaad dadka wax u sheegi ilaahay xaqiisa umada ugu yeed waxa maanta adduunyada laga sheekeynay waa waxba kama jiraan fadhkuruni adhkurkum washkuru li wala takfurun ba ilaahay leeyahay xasuusta aniga ana in xasuusanaye ima hadna qaba ilaahay leeyahay hayga gaaloobina ba ilaahay leeyahay marka bishani waa bil aad u barakaysan dadka muslimiinta waxa la doonayaa fursada inaan ka faa'iideysano waa bil ducada ilaahay aqbalayo balaayooyinka iyo masiibooyinka la sheegayaana dadkeena iyo dalkeena iyo dalalka muslimiinta iyo dadka muslimiinta Allah ka ilaaliyo aamin dhahada dadka dhibta soo gaadhana Allah ka qaado dadkii ku dhintayna Allah u naxariisto dadka u hayana Allah caafimaad sariic Allah siiyo ducada ayaan haysanaa ducaa ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه برسولكم يري الهي بريا بو نبي ليهي او باهيدين الهي او شيغتا انكو يقينسن او ku kalsoon ilaahay inuu ducadiina aqbalayo استقبلوا بامواج البلاء بالدعاء وحسنوا اموالكم بالزكاه وداووا مرضاكم بالصدقه طب النبوي امام قيم ابن قيم رحمه الله حديث ayuu ku sheegay balaayooyinka dabayluhu ay wadaan buu nabigu leeyahay duca ku qaabila ducadu way weecisa balaayada xoolihiinana
waxaad ku ilaalisaan buu nebigu leeyahay zakada haddaad zakada dhiibtid oo dadka mustaxiqiinta loogu talagalay aad xoolahaaga aad ka siisid xoolahaaga ilaahay kaa dayici maayo ilaahay baa ku ilaalin kiina inaga bukoodana buu nebigu leeyahay sadaqada ku daweeya muxuu leeyahay hay-adda caafimaadka adduunkuna waxay dadka ka dhaadhicisay xanuun aan dawo loo hayn baa adduunka soo galay nebi maxamedna waxa uuna leeyahay kiina inaga bukooda sadaqada ku daweeya warkayna galay markaa warkeenna galay maanta hay-adda caafimaadka adduunku waxayna tidhi xanuun aan dawo loo hayn baa jira kala dheeraada nebi maxamed waxa uuna leeyahay xabbatu sawdaa dawaa'un min kulli daa xabasuuda buu nebigu yidhi xanuun kasta oo adduunyada ka jira ayadaa u dawaa buu nebigu leeyahay ilaa geerida mooyaane cilmiga gaaladu ay ku hadlayaan waa cilmi tajaarub waa cilmiga tajaarubka cilmiga nebi maxamed uu ku hadlayana waa cilmi alwaxyi weeyaan wamaa yantiqu cani lhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa gaaladu waxayna leedahay xanuun aan dawo loo hayn baa adduunyada gaadhay iska ilaaliya ilaahayna qur-aanka waxa uu ku leeyahay fiihi shifaaun linnaas waa casalka malabka dawaa ilaahay geliyey khabarka dadku ay sheegayaan muuminka inuu gala maaha khabarka ilaahay iyo khabarka nebigu sheegeen qalbiga ha ku galo dhibaato kastoo adduunyada lagu sheego xalkeega ilaahay iyo rasuulka innaka noo sheegay laakiin dadku warkaa uu galay allah inaga dhigo dishani waa bil barakaysan markaa han ducaysano insha allah waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariib ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan falyastajiibuu lii waliyu'minuu bi lacallahum yarshuduun sababu nusuulka aayadda ay ku soo degtay maxay ahayd nin acraabi oo reer baadiyaa ayaa nebigeenna u yimid calayhi salaatu wassalaam waxau yidhi yaa rasuul allah ilaaha xaggiisa aad noogu yeedhaysaa ma mid naga dheero markaan baryayno maanu qaylinaa mise waa mid noo dhow oo aan la munaajownaayo hoos baan wax ugu sheeganaa bal noo sheeg u aamusay nebigeennu calayhi salaatu wassalaam deedna markaasay aayaddan qur-aanku soo degtay ilaahay uu leeyahay haddii aniga addoommahaygu ikaa weydiiyaan waxaad u sheegtaa inaan anigu addoonka aan u dhowahay ka i baryana baryadiisa waan ajiibi baa ilaahay yidhi ee aniga laakiin hay ajiibaan laba shardi baa lagu xidhay ducada in laga aqbalo imse shardi laba shardi falyastajiibuu lii ilaahay ajiib oo amarka ilaahay ilaali oo shareecadda ilaali oo diinta ilaali oo taacadda ilaali oo wixii macruufa ilaahay ku faray la kaalay wixii munkare shareecaddu ay kaa reebtana ka reebtoom waliyu'minuu bi ilaahayna rumee qadaa walqadar waxa ilaahay kugu xakumayna ku raali noqo wixii ilaahay kuu qadarayna ku qanac labadaasi hadday qalbigeenna ay timaado waxa adduunyada la sheegay oo dhan ayna saamayn maayaan waxa adduunyada maanta ka jira qur-aanka si fiican u dhegayso walanabluwannakum bishayin min alkhawf waljuuc wanaqsin min alamwaal walanfusi walthamaraat maxaa ku xiga wabashiri saabiriin daawada xanuunada adduunyada ka jira oo dhan waa sabir weeyaan miftaaxu lfaraj waa sabir weeyaan addoonku mukhayar maahayna waa musayar addoonku wax ma dooran kara isagu wixii ilaahay kuu qadara adiga waa inaad ku qanacdaa lidaalika nebigeennu calayhi salaatu wasalaam waxa uu noo sheegay malaa'igtu markay ilmaha yar ay nafta ka qabtaan ayuu ilaahay malaa'igta ku yidhaahdaa addoonkaygii ilmihiisii ruuxda ma ka soo qaabateen haa bay yidhahdaan addoonkaygii midhihii qalbigiisa ma soo qabateen haa waan soo qabannay markaasuu ilaahay yidhahdaa famaada qaala cabdi addoonkaygii markaad ilmihiisii ruuxda ka soo qabateen muxuu yidhi balii sheega markaasay yidhahdaan xamidaka wastarjaca xamida ma macna alxamdu lilaahi calaa kulli xaal buu yidhi innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun buu yidhi markaasuu ilaahay yidhahdaa maadaamuu addoonkaygii markii ilmihiisa nafta aad ka soo qabateen uu aniga ii mahadnaqay uu isaguna xaggayga u soo noqday ibnu licabdii beytan fi ljanna aqal jannada uga dhisa aqalkaana waxaad ugu magac dartaan gurigii mahadnaqa muminku barwaaqadana uu ka macaashaa masiiba hadday ku dhacdana uu ka macaashaa waa qofka muminka laakiin fa ilaahay tabaaraka wa tacaala iimaanka haynoo adkeeya amiin dhahada
bisha rabadaanna allah inaga aqbalo dad walaalaheena dibadda taagan masaajidka ma sha Allah aad baa loo buuxiyay insha Allah khudbadan iska bilaaban doona allahna inagu anfaco wa sallallahu ala sayyidina Muhammad